Takahiro Shirashi, dilaagii Twitter-ka ee ka fajiciyay dalka Japan. Takahiro Shirashi oo loogu magac diray dilaagii Twitter-ka waxaa la xiray sanadkii 2017 kadib markii qaybo ka mid ah jirka bini'aadamka laga helay gurigiisa. Ninkan 30 sano jirka ah ayaa qirtay inuu dilay isla markaana uu jarjaray dad u badnaa haween dhalinyaro ah oo uu kala xiriiray baraha bulshada. Dilalka dhowrka ah ee uu ninkani geystay ayaa dhalisay dood ku saabsan sida inuu qofku isdilo looga doodo baraha internetka ee Twitter-ka. In ka badan 400 oo qof ayaa soo xaadiray maxkamadda oo ay ka socotay dhageysiga dacwadda eedeysanahan, inkastoo ay maxkamaddu ugu talagashay bulshada kasoo qaybgalisa 16 kursi oo kaliya. Su'aasha ugu weyn ee dunida ay isweydiinayso ayaa ah sidee ayuu ninkan u helay dadkii uu dilay. Shirashi ayaa barta Twitter-ka u adeegsaday inuu ku soo jiito haweenka ku fikra inay isdilaan, isla markaana uu gurigiisa keenay isagoo sheegay inuu ka caawin karo inay dhintaan. Sida uu dambiilahani qirtay isagoon jixin-jixayn, wuxuu xiijiyay oo uu jarjaray 8 haween ah iyo weliba hal nin oo da'da u dhaxayso 15 ilaa 26 jir. Warbaahinta Japan ayaa ugu yeertay guriga argagaxa kadib markii laga helay 9 madax iyo lafaha gacmaha iyo lugaha oo lagu riday qaboojiyayaal ama talaagada waxaanu naqaano. Waxyaabihii la yaabka lahaa intii dacwadiisa ay socotay waxaa ka mid ah in qareenadiisu ay ku doodayeen in ninkani uu dilay dad raalli ka ah inuu dilo, sidaa daraaddeedna in loo khafiifiyo dambigiisa ay tahay. Dilaaga Twitter-ka ayaa markii dambe beeniyay hadalka kooxda difaacaysa isagoo sheegay in dadkaasi uu dilay iyagoo aan siin wax ogolaanshiyo ah. Qareenkii maxkamadda oo maanta riday xukunka ayaa sheegay in midkoodna dadka dhintay uusan ogolayn in la dilo. Eedeysanaha ayaa si buuxda mas'uul uga ah, ayuu yiri Nikoni Yona sida uu tabiyay wargeyska Straits Times ee dalka Japan. Warbixintan dilaaga u dhashay waddanka Japan waxaanu ka soo minguurnay shabakadda bbcsomali.com ay ku leedahay website-ka. Haddaba haddii aad rabto inaad daalacto fadlan booqo warbixintan oo dhammaystiran. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku raali geliyay. Fadlan haddii uu ku raali geliyay like, share iyo subscribe. Waanu ku mahadnaqaynaa markasta oo na soo boqotay. Waxaanu channel-kaygii hore ee 10,000 qof ay ku xidhnaan uga soo guurnay cilad farsamo oo ku timid dhanka xayeysiinada iyo